Barasaabka gobolka Gabiley Mudane Cabdiqani Maxamuud Jiiro uu helinayo maayarka degmada Togwajale Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamed isuduwaha wasaaradda hawlaha guud-guriyeenta dhulka gobolka Gabiley iyo mas'uuliyiin ka socota wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Somaliland ayaa maanta soo kormeeray wadooyin carrakaawo oo laga hirgeliyay xaafadaha bariga iyo wadada isku xidha kaawaanka gowraca xoolaha wadooyinkan oo hirgelinaysa dowladda hoose ee degmada Togwajale ayaa waxaa soo kormeeray barasaabka gobolka Gabiley intaasi kadib mas'uuliyiintan ayaa la dhacay wadooyinka ay hirgelisay dowladda hoose ee degmada Togwajale iyagoo ku ammaanay maayarka degmada Togwajale Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamed oo isagu markastaba u taagan horumarka iyo kor u qaadida bilicda degmada Togwajale mas'uuliyiinta halkaasi ka hadlay oo hadalka iskaga kala dambeeyay ayaa waxay yiraahdeen sida tan barasaabka gobolka Gabiley Cabdiqani Maxamuud Jiiro waxaana hadaladooda kamid ahaa barasaabku isagoo ku guda jira waajibaadka hawlaha qaranka uu hayo indaynayana wax qabadka degmada iyo horumarka ka socda iyo guud ahaan xaaladda degmada ayaa la soo booqday waxaan leenahay waqtiga uu hogaaminayo barasaabku ku soo dhawo degmadaadii baan leenahay barasaab iyo wax qabadka aad arkaysa maanta indhahaaga ku arkayso gudoomiye waxaan halkan kugu soo tusnay oo dagaalabahaaga ku timid wado 4 kiiloomitir iyo badh ah oo iskugu jirta ilaa imika halkan taagan waa isku saddex wado wadaajinaya wadada kawaanka u baydha wadada godka xashiishka u baydha iyo magaalada u socota wadadaasi guud ahaan 4 kiiloomitir iyo badh way socotaa ilaa 2 kiiloomitir iyo badhna waxay geli doontaa magaalada gudaheega haddii aan la yidhaahdo sida noo qorshaysan laba wado oo kale ta socota maaha laba kalena ciidda ayaa noo taalla laba kalena way qorshaysan yihiin oo banayntii iyo nadiifintii baanu ku guda jirnaa guud ahaan nabadgelyadu waa caadi hawlihii shaqa ee qaranku waa ku guda jirnaa waa socdaa amnigu waa saraakiisha amniga joogta aad bay hawshu u fiican tahay waxaan ku leenahay gudoomiye ku soo dhawow degmada oo haddii aan la yidhaahdo waxqabadkeedii kawaankii waanu soo raray wakaas aad arkayso wuu shaqaynayaa waa laga raystay cabashadii faraha badnayd ee kawaankii hore kormeer iyo indhayn iyo indhahooda ku soo arkaan mashaariicda kala duwan ee aan degmada ka wadno alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay inoo suurtageliyey ayaan ku mahadnaqanaa gudoomiye sanadka waxaan u qorsheynay 2022 inuu noqdo sanadkii horumarka ee degmada Wajaale intii gudoomiye way adkay wadada laamida inta leh 4 kiiloomitir iyo badh oo carawo ah saafada inta leeg in la dhigo oo kawaanka la keeno oo godkii qashinka la geeyo oo saylidii la geeyo dhaxa goobad waxay haayeen meelo degmada muhiim ugu jira laakiin xilli roobaad ay adkayd in wax gaariyay soo maro runtii waanu wadnaa horumarka waxaanu u qorsheynay sanadkan hadduu alla yiraahdo in wadooyinkii ugu badnaa degmada aan u sameeyno hadduu alla yiraahdo kuwaas oo la wadooyin jidcadayaala u badnaan doona gudoomiye degmadan Wajaale waa degmo dhoobeley xilliyada roob aan gaadiidku isku gudbi karin marka jidcaduhu masaafadu nooga imanayo marka la eego wuxuu noogu taagan yahay ka degmo ahaan Wajaale halka laamida caadiga degmooyinka kale ugu taagan tahay dhagaxu u dhow yahay ayuu annaka noogu taagan yahay maadaama ay naga fog yihiin dhulka laga soo qaado rada dhagaxee jidcadaha gudoomiye waxa ag socda dhismaha wadoon banayntii master baleenka qorshe annaka waafajinana xaafadaha kala duwan si aan wadooyinka iyo adeega wadooyinka aan u gaarsiino maanta waxaan hormeer indhayn oo shaqo u nimid degmada Wajaale waxaan soo boqonay wadooyinkii laga hirgeliyay halka oo degmadu ay muddadii dambe waday maalintii ugu dambeysay carrakaawo taal iyadoo la fidin wadada waxaan maanta aan la koosanay wadadii oo 4 kiiloomitir 3 kiiloomitir iyo badh inaan soo lugaynay ilaa iyo guriga degmada ilaa halkan aan taaganay oo kawaankii iyo godkii qashinka wadadii u kala beedhaysay barta isku iska triangle-ka ay ku kala qaybsantay maadaama muhiimad gaar ah ay degmada Wajaale ay u leedahay qaranka oo dhan iyo gaar ahaan gobolka Gabiley dowladda waxa weeye wadeed waxaan doonayaa inay noqoto magaalo qurux badan dowladda hoose ee degmada Wajaale ee halka jooga ugu mahadcelinaya hawsha ay wadaan Roomo maalin lagu ma dhisin baa leeyahay hawshu ma yara shaqo yar xil wareejin meel wax laga qabtay 3 wado la 3 taagay marka maantana 3 wado in dhex taagana Wajaale waxaan leeyahay ballaarka magaalada iyo deegaanka tiradiisa marka la eego gudoomiye idinkama dhawa wax waa qabateen waa sax laakiin idinkama dhawa haddana haddii aad aragto meel had iyo goor dhaqdhaqaaq ka jiro ama muran ka jiro iminka wado meel iskuul ag martay waxbaanu ka murmayni marka shaqo jirta qofka wax lagu canaantaba aan haysan wax lagu mucaarada waan shaqo muu qaban shaqo waad qabateen laakiin waxaan leenahay inta ka badan baa leedin ka sugaya Wajaale waa magaalo aad u weyn horta anigu Khadar Cabdillaahi telefishinka caalamiga badda cas 24 TV degmo ganacsiyeedka Wajaale gobolka Gabiley abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo ku fududeynaya isla markaasina ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg
ee idahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda Somtel mar kasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus